بسم الله الرحمن الرحيم. ديار بسمني. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أنتوا بيشا ماي تايشني على وطن لبكوني تضبية طبعا شركة قلها وزيرة ده وترسيجي سواها لبا بقولي على وطن ونه قدومين أيه مدحوينها جمهورية الصومالي الآن مدن أحمد محمد محمود سيلانيو وحاكا صوب حي قلها وزيرة ده دور قضب waxaa la gudoomiyay oo ka soo baxay golaha wasiirada in aan la aqbalin lacag dhan 2,000 la aqbalin lacagta 200,000 ee dollar ah ee dawladda aynu jaarka nahay ee Soomaaliya tiri waxaan ugu deeqnay maamulada Soomaaliya oo aanay jamhuuriyadda Soomaaliland ka mid ahayn waxaan u sheegaynaa in jamhuuriyadda Soomaaliland ay tahay dal jira oo madax bannaan waxaanu kale u sheegaynaa dawladda Soomaaliya in ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka jirto qorsho ku salaysan ka soo kabashada abaaraha laguna ururinayo lacag dhan 10 milyan oo dollar lacagtaas 3,281,940 dollar hadda ay tahay wax soo xirooday iyo wax lagu baaqay in la soo xireeyo aanu filaynaa si dhaqso ah u soo xirooto 4 milyan dalkaanu saaxiibka nahay ee Imaaraadka Carabtu ay ku beeqeen 2 milyan oo DB iyo 2 milyan oo dawladda Imaaraadka Carabta ah Sheekh Maxamed oo 500 kun iyo milyan iyo badh dalka Carabta waxaanu filaynaa sida markaanu eegnay sida ay hawshan u socoto iyo laxaadka iyo sida ay u ajiibeen baaqa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland in ay lacagtanu noqonayso mid ka badan aadna uga ballaaran sidii markii hore loo qoondooyay waxaanu kale oo ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland ugu baaqaynaa meel kasta ay joogaan gudo iyo dibad caasimadda gobollada iyo degmooyinka iyo tuulooyinkaba in ay ka dhiidhiyaan quursiga maalin walba dawladda jaarka aynu nahay Soomaaliya ay ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madax bannaanideeda ay quursanayaan kuna bedelaan arrinkan ficil ay ku ururinayaan barnaamijka ka soo kabashada abaaraha adduun weynaha iyo dawladda Soomaaliya aynu jaarka nahayna u cadeeyaan inay ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland tahay dal jira dal madax bannaan dal isu damqada dal isku tashada marnabana sidoo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu in badan sheegay hadday 100 sanadood qaadanayso aan qayb ka noqonayn Soomaaliya iyo waxa ay ku tilmaamaan gobol maamuleedada Soomaaliya waxa kale oo la isla qaatay in golaha wasiiradu ee fadhigan maanta tirsigiisu yahay 220 ay ku darsadaan wasiir waliba uu bixiyo lacag dhan 500 dollar oo ku darayo barnaamijka ka soo kabashada abaaraha agaasimayaasha guudna 200 dollar agaasimo guud oo waliba lacag dhan waxa kale oo madaxweyne ku-xigeenka Puntland uu sheegay in Puntland iyo Somalilandba
ay dowladda Soomaaliya u saxeexday heshiiska dekedaha Boosaaso iyo Berbera. waxa kale oo raaciyay in dowladda Somaliland ay tahay dowlad ka baqanaysa shacabka jamhuuriyadda Somaliland oo sababta aanay u sheegaynin ay sidaa tahay. waxaan leeyahay abtigay dowladda Somaliland ee madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo garwadeenka ka yahay ama madaxweynaha ka yahay waa dowlad la doortay oo shacabka jamhuuriyadda Somaliland ay dooratay. waa dowlad qandaraaska u dhaxeeya isaga iyo shacabkooda ay tahay mid run ka sheega. waxa kale oo aan u sheegayaa horta Puntland baad ka warantay oo Soomaaliya ka mid ah. Somaliland waa dal madax bannaan, waana dal uu u saxeexay DP World wasiirka khaarijiga ee jamhuuriyadda Somaliland mudane Saacad Xaaji Cali Shire. golo fagaaraana lagu saxeexay laguna shaaciyey TV-yada iyo website-yada iyo jaraa'idka adduunka oo dhan. waxa kale oo aan leenahay hadday Soomaaliya saxeexday madaxweynaha Soomaaliya imaaraadka intuu yimaado muu dacwoodeen oo imaaraadka muu baryeen oo ma yidhaahdeen arrintaa hala joojiyo ama aanu qayb ka noqono. waxaanu kaloo leenahay golo fagaaro oo adduunka oo dhan joogay ayaa DP World lagu wareejiyey. Berbera maalintii lagu wareejiyey hadday saxiixeeda leeyihiin dee inay yimaadaan bay ahayd ama inay ka hadlaan ama inay sheegaan. iyadana dee arrin tuugxado ma aha ama meel gaara lagu wada hadlo. waxaanu leenahay saldhigga Berbera iyo DP World dowladda jamhuuriyadda Somaliland cidna u fadhiisan mayso. xuduudada jamhuuriyadda Somaliland cidna u daba fadhiisan mayso. saxiixiyadeedana adduunkuna waa ogyahay, caalamka oo dhamina waa ka warhaya. Somalilandna way ogtahay. fagaarayaal baa lagu saxeexay. waxa lagu wixii aanu caalamka la gelaynana cid aanu u daba fadhiisanayna ma jirtee. madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland iyo cidda u igmado ayaa saxiixyadaas leh. maanta waxa keenay anagu horta dee goboleed ma nihin gobol caliyo anagu gobol Soomaaliya ka mid ah gobol maamuleeda la sheego anagu ma nihin. waxaanu nahay dowlad madax bannaan, ummad madax bannaan, dal iskii u jira oo la yidhaahdo jamhuuriyadda Somaliland ayaanu nahay. waxa kale oo saad ka warqabto anagu dee si walaaltinimo ayaanu ugu geynay markii hore aanu taakuleynta aanu u geynaynay. tii hore ay keeneenna iyadu ay keeneen jamhuuriyadda Somaliland bay soo mariyeenoo ceeb damay sameyn waxay yidhahdeen jamhuuriyadda Somaliland baan u geenaynaayo madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland bay u keeneenoo halkan iyo nidaamkan ayay soo mareen dowladnimada iyo qaranka jamhuuriyadda Somaliland sidoo ahaan jiray. maanta waxaad moodaa dowladda uu madaxweyne Farmaajo uu ka madaxda yahay inay hab ka duwan ama ka waxyeeleynaysa xidhiidhka inaga dhexeeya oo ahaa in aynu nahay laba dowladood oo walaala ama jaar ah oo isqadariya. uu tii ka tallaabsadayoo oo uu doonaya inuu inaga dhigo 6 maamulada goboleedyada Soomaaliya maxaan ku rahdaa ka jira. waxaanu leenahay kama mid nihin. waxaanu kaloo ku daraynaa baaqan gobol iyo qof jamhuuriyadda Somaliland ka tirsan oo lacagta aqbali kara ama qaban kara inaanay jirin. dambi qaranna ay tahay
hadduu aqbalo wax ummadda jamhuuriyadda somalilan ay gaadhay inay arrintaa maxaan ku dhahdaa ay aqbalaan hadday sida jaarnimadu ay tahay adduunyada dawladuhu ay noo bixinayaan ay habkeeda soo maraan waxaanu leenahay dib ha isugu noqdaan annaguba si aan ugu gurminay milgaha iyo maamuuska lahayd hadday leeyihiin waxbaanu isu taraynaa sidaan u tarnay dee wax la diidaya maaha laakiin tanu midaanu aqbali karna maaha waa midaan u aragnayn madax bannaanida iyada lagu maxaan ku dhahdaa lagu cawarayo waa midaanay ummadda jamhuuriyadda somalilan aqbalayn waa midaanu madaxweynaha jamhuuriyadda somalilanna aqbalayn sababta ay u doorteenna waa waxyaabaha noocaasa ee uu geesinimada ku yahay ee aanu aqbalayn aad baa u mahadsantihin